Assalaamu calaykum kusoo dhawaada warbixinada ciyaaraha. Waxaad ku maqli doontaan kooxda Manchester City oo aan la siin doonin sharafta Champions League. Steven Gerrard, Ronaldo iyo Karim Benzema kula biiray horyaalka Sacuudiga. Waqtiga Pep Guardiola isaga tagayo Manchester City oo la shaaciyay. Real Madrid oo shaacisay lambarka cusub ee Vinicius Junior u xiran doona kooxda xil ciyaareedka dambe. Manchester City ayaan la siin doonin sharafta ay ku xirato astaanta koobka Champions League xilli ciyaareedka soo socda, inkastoo ay habeenkii Sabtida ay ku guuleysteen tartanka Champions League ayna ku garaaceen kooxda Inter Milan. Kaliya kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Liverpool ayaa UEFA u ogolaatay in ay xirtaan calaamadda. Manchester City ayaa markii ugu horeysay taariikhdeeda ku guuleysatay Champions League kadib markii ay 1-0 ku garaaceen Inter Milan kulan ka dhacay garoonka Atatürk Olympiacos Stadium. Laakiin kooxda Pep Guardiola ayaan xiran doonin calaamadda Champions League xilli ciyaareedka dambe sidii hore u sameeyeen kooxaha Liverpool iyo Real Madrid. Astaanta sharafta ee UEFA waxaa si gaar ah loogu talagalay kooxaha ku guuleystay Champions League 5 jeer ilaa wax ka badan amase kooxda 3 jeer oo xiriir ah ku guuleysata tartanka. Sidaas daraadeed kooxda Manchester City ayaan buuxin shuruudda UEFA, sidaas daraadeed xilli ciyaareedkan dambe ma xiran doonto calaamadda sharafta UEFA Champions League. Horyaalka Sacuudiga ayaa sii wada soo jiidashada xidigaha iyo tababarayaasha waaweyn ee qaaradda Yurub. Kooxda ka ciyaarta horyaalka Sacuudiga ee Al Ittifaq ayaa xidigii hore ee kooxda Liverpool Steven Gerrard u magacaaday tababaraheeda cusub ee kooxda. Kooxda Al Ittifaq ayaa Steven Gerrard ka dhigtay tababaraha hogaamin doona xilli ciyaareedka dambe kooxdeeda. Gerrard ayaa shaqo la'aan ahaa tan ilaa markii laga ceeriyay shaqada tababarinimo ee kooxda Aston Villa intii uu socday xilli ciyaareedkii dhamaaday. Al Ittifaq ayaa Gerrard ka dhigaysa magaca ugu weyn ee dhanka tababarayaasha yimaada horyaalka dalkaasi Sacuudi Carabiya. Horyaalkaasi ayaa hore waxa ugu biiray Cristiano Ronaldo, Karim Benzema iyo xidigii Chelsea ee Kante. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu qorsheynayo inuu isaga tago kooxda Manchester City marka uu dhaco heshiiska kooxda uu kula jiro ee uu ku egyahay sanadka 2025. Pep Guardiola ayaa ugu dambeyntii soo afjaray sanado badan oo murugo ka haystay Champions League oo uu la joogay kooxda Citizens Axadii isaga oo ku hogaamiyay kooxdiisa ku guuleysiga tartanka Champions League. Sky Blues ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee England ee ku guuleysata 3 koob tan ilaa markii Manchester United ay ku guuleystay sanadkii 1999 waxaana uu kooxda u saxiixay heshiis ilaa sanadka 2025. Tababarahana 51 sano jirka ayaa xiise ka helaya xulka qaranka Brazil waxaana uu kooxda Manchester City kula jira heshiis ku eg sanadka 2025. Si laga soo xigtay The Guardian, Pep Guardiola ayaa diyaar u ah inuu isaga tago kooxda marka uu dhaco heshiiska uu kula jiro kooxda. Real Madrid ayaa shaacisay in xidiga Vinicius Junior kooxda u xiran doono lambar cusub wixii ka dambeeya xilli ciyaareedkan. Xidiga reer Brazil ayaa muhiim ka ahaa kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkii dhamaaday waxaana uu kooxda u dhaliyay goolal badan oo muhiim ah. Kadib bixitaankii Eden Hazard, Real Madrid ayaa shaacisay in xidiga reer Brazil dhaxli doono lambarka taariikhiga ee lambar 7 ee kooxda Real Madrid. Xidiga reer Brazil ee Vinicius Junior ayaa wixii ka dambeeya xilli ciyaareedka dambe xiran doona lambarka 7 ee kooxda Real Madrid ee uu baneeyay Eden Hazard. Vinicius Junior ayaa kooxda Real Madrid u xiran jiray lambarka 20aad xilli ciyaareedkii dhamaaday kaasi oo si wanaagsan ugu soo caanbaxay lambarkaasi. Laakiin xidiga Vinicius Junior ayaa haatan kooxda u xiran doona lambarka caanka ee lambar 7 kaasi oo ku bilaaban doona xilli ciyaareedka dambe. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka warbixinada. Haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe, desina share gareysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanidin.